halkaad nagala socotaan waa warsheega media channelka iyo facebooka kuna soo dhawaada wixii war naga soo gaaray gudaha dalka iyo dibaddiisa fadlan subscribe sa channelka haddii aadan hore u saarin qaramada midoobay oo go'aamisay in kun ka tirsan howlgalka AMISOM laga saaro Soomaaliya sirta ka dambaysa safarka khayro maanta ku aaday dalka Qatar nin dili rabay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo la qabtay wasiirka amniga galmudug oo shil gaari ka badbaaday iyo waxyeelo soo gaartay ilaaladiisa al-shabaab oo dilay nin lagu magacaabo Qaasim Xaaji kadib 3 qof ay u dileen sababo isku mid ah wararka kale oo aan helin waxaa ka mid ah shabaab oo hal mar weerar ku qaaday dhowr saldhig Abiy Ahmed oo war ka soo saaray khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xubno la kulmay farmaajo oo uga digay inuu kulamo la yeesho beelo gaar ah wasiir Caawid oo beeniyay warqad la sheegay inuu Puntland uga faa'iideeyay heshiis faahfaahin ka soo baxaysa heshiis dekedeed oo dhexmaray Puntland iyo Shiinaha qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada mar warsheega media qaramada midoobay oo go'aamisay in kun ka tirsan howlgalka AMISOM laga saaro Soomaaliya qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday inay mar kale dhimayso ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya si loo gaarsiiyo 19626 askari inta aan la gaarin 28 Febraayo sanad 2020 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay isugu raacay in kun askari leh laga saaro dalka iyadoo aanay si rasmi ah loo sheegin dalka uu noqonayo hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in Kenya ama Burundi ay yihiin askarta laga saarayo Soomaaliya qorshahan cusub waxaa golaha ammaanka hordhigay dowladda Ingiriiska oo ka wadamada bixiya dhaqaalaha lagu socodsiiyo howlgalka AMISOM waxaana dalkan sidoo kale uga sugan saraakiil tababar siiya ciidamada Soomaalida CNA iyo AMISOM marka tallaabadaas la qaadayo waxa iyana barbar socda qorshe ah in la kordhiyo booliska AMISOM lana gaarsiiyo ilaa iyo 140 askari oo boolis ah qorshahan ayaa qayb ka ah kii xaaladda kala guurka ee lagu heshiiyay sanadkii 2017 iyadoona tan iyo waqtigaas si tartiib loo dhimayay ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya qaramada midoobay ayaa raadinaysa sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya xilli dagaalamayaasha al-shabaab ee ku xiran ururweynaha al-Qaacida oo ujeedkoodu yahay sidii ay meesha uga saari lahaayeen dowladnimada Soomaaliya taliska AMISOM ayaa dhowr jeer ku celceliyay inta aanay dhammaan muddada dowladdan u hogaamiyay madaxweyne Farmaajo ee ammaanka dalka la wareegaan ciidamada Soomaaliya iyadoo la dhimayo tirada ciidamada jooga Soomaaliya ee gaaraya 22,000 oo askari kuwaasi oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa la aasaasay sanadkii 2007 sirta ka dambaysa safarka uu khayro maanta ku aaday dalka Qatar wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kaas uu ka dhoofay maanta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa u dhoofay dalka Qatar oo lagu tiriyay inay tahay dowladda koowaad ee xiriir fiican la leh dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare khayro ayaa la filayaa inuu dalkaas Qatar kulamo kula qaato madaxda ugu sareysa dalkaas oo ugu horeeya boqorka sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha safarka khayro ayaa lagu sheegay inuu yahay mid xoojinaya xiriirka labada dal ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa saako ama baxay dalka Qatar waxaana uu kulamo laga hadlayo xoojinta xiriirka labada dal la yeelan doona mas'uuliyiinta dalkaasi sidaas waxaa yiri xafiiska ra'iisul wasaaraha wararka qaar ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Khayre dowladda Qatar kala hadli doono inay siiso lacago deeq ah maadaama dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii dambe ka cabanaysay lacag la'aan baahsan oo soo food saartay sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa madaxda Qatar kala hadli doona sababta aysan weli u fulin mashaariic dhowr ah oo ay hore dowladda Qatar u ballan qaaday inay ka sameynayso Soomaaliya safarka ra'iisul wasaaraha oo aan hore loo ogeyn ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku maqan yahay dalka Sacuudi Carabiya halkaas oo uga qayb galayay shir ay yeelanayeen wadamada Carabta oo ka dhacay magaalada Makka al-Mukarrama inkastoo la filayo in saacadaha soo socda uu dib ugu soo laaban doono dalka sidoo kale safarka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya kadib wadahadallo dhanka taleefanka oo asbuucyo ka hor dhexmaray madaxweynaha Farmaajo iyo amiirka dalka inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen dowladda Qatar ayaa dhowaan siisay dowladda Soomaaliya 20 milyan oo dollar kadib markii dowladda Soomaaliya ee Qatar ku garab siisay khilaafka kala dhexeeyay dowladaha Carabta dowladda Qatar ayaa la aaminsan yahay inay qayb ka ahayd doorashadii dhacday Febraayo 2017 taasoo lagu doortay madaxweyne Farmaajo
al-shabaab u dilay qaasim xaaji kadib 3 qof oo ay u dileen sababo isku mid ah. Xubistooda ku hubeysnaa ayaa xalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dishay nin lagu magacaabi jiray Qaasim Xaaji oo ka mid ahaa dadka degmada, isla markaana si weyn looga yaqaano. Xilligii la dilayay waxa uu ku sugnaa xaafadda sagaalaad ee degmada Afgooye, waxaana dilka kadib baxsaday kooxdii ka dambeysay dilkiisa. Ciidamada ammaanka ee dowladda oo goobta tagay waxa ay sameeyeen howlgallo ay ku raadinayaan dadka ay ku tuhmayaan ama lala xiriirinayo kiiskan. Mana jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Afgooye. Dilalka qorshaysan oo dhowr jeer sidan oo kale uga dhacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lala beegsanayaa odayaasha lala xiriiriyay soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed. Al-shabaab ayaa shalay Muqdisho ku dilay 3 qof oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dadkii soo xulay xildhibaanada Koonfur Galbeed. Ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in Maxamed Sheekh Maxamed lagu dilay degmada Dharkiinley, halkaas oo sidoo kale rag hubeysan ay Cabdulla Maxamed Maaxay ku dileen xaafadda KBB ee degmada Hodan. Dhinaca kale, al-shabaab ayaa sheegtay inay degmada Madiina ku dileen Nuur Isxaaq Ilay oo isna ka mid ahaa sida ay sheegeen ergadii ka qayb gashay shirkii xildhibaanada lagu soo xuliyay ee ka dhacay magaalada Baydhabo. Nin dil rabay madaxweynaha Kenya oo la qabtay. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynayay dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Ninka la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isu dayay inuu shalay galo garoonka Nairobi, halkaas oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Mother's Day. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in Aadan Galhey oo 22 sano jir ah oo shalay qabteen ciidamada militariga, hase yeeshee uu ka baxsaday. Ninkan ma sheegin qorshihiisa, hase yeeshee booliska ayaa sheegay inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya oo maanta khudbad ka jeedin lahaa garoonka. Saraakiisha booliska Kenya ayaa sheegay in Aadan uu sanadkii 2014 ku biiray Islaamka, sidoo kalena galay xarakada al-shabaab, waxaana ku noolaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaa sidoo kale la socday nin kale oo ay ciidamada ammaanka sheegeen inay qabteen. Qabashada Aadan ayaa ka dhalatay kadib markii laga shakiyay lana baaray aqoonsiyada uu watay. Wasiirka amniga ee Galmudug oo shil gaari ka badbaaday iyo waxyeello soo gaartay ilaaladiisa. Qodobkan wuxuu ku jiray wararkii saaka aan ku sii deynay bahda Cable TV, waxaana rajeynayaa inaad hore u bagateen. Markaana al-shabaab wararkii ugu dambeeyay, shabaab oo hal mar weerar ku qaaday dhowr saldhig. Dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday saldhigyo ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo ay ku leeyihiin degmooyinka Bardale iyo Qansax Dheere oo ka wada tirsan gobolka Baay. Ciidamada Itoobiya oo saldhig ku leh Bardale ayaa la sheegay inay ridayeen madaafiic culus oo si xooggan looga maqlayay magaalada. Bardale ayaa waxa ay saldhig ciidan u tahay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM iyo kuwo kale ee aan AMISOM ku jirin oo ka socda dowladda dalkaas. Gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaaq Xasan ayaa sheegay in al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen degmadiisa Bardale, balse ay iska caabiyeen kadib dagaal culus oo ay kula galeen afaafka hore degmada Bardale. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed uusan wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalkaas, sidoo kalena uusan sheegi karin khasaare ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha ka tirsanaa al-shabaab, maadaama xilliga ay dagaalka soo qaadeen uu ahaa xilli habeen ah. Wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno degmada Bardale ee gobolka Baay ay sheegayaan in dagaalkii xalay ka dhacay degmada Bardale ee khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray labada dhinac. Inkastoo ay aad u yar tahay xogta laga heli karo dagaalkaas, dad ku sugan degmada Bardale ayaa noo sheegay inay arkeen dhaawacyada ilaa iyo 10 askari oo la gaarsiiyay isbitaalka guud ee degmadaas. Dhanka kale, isla xalay al-shabaab waxay weerar ku qaadeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay, waxaana la sheegay in dagaal muddo socday oo xalay dhex maray ciidamada ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab. Dagaalka Qansax Dheere lagama soo warin wax khasaare ah, waxayna sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Koonfur Galbeed inay iska caabiyeen shabaabkii weerarka ku soo qaaday. Waxayna sheegeen in al-shabaab ay dib ugu laabteen dhulkii hawdka ahaa ay kolkii hore ka soo weerar tageen. Abiy Axmed oo war ka soo saaray xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, iyo Cawad oo beeniyay warqad la sheegay inuu Puntland uga faa'iideeyay heshiis. Qodobadaas iyo qodobo kale waxay ku jireen wararkeena subaxnimo. Markaana Baydhabo, madaxweyne Laftagareen oo halis ugu jira inuu xilkiisa ku waayo Roobow iyo olole socda. Khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana isku day lagu doonayo in xilka looga rido madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo guddoomiye Shariif
sheekhuna ayaa khilaafkooda wuxuu salka ku hayay xariga Mukhtaar Robow oo gacanta ugu jira hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu kaalin ku lahaa xariga Robow, waxa uuna amray in si degdeg ah loo soo daayo, isagoona sheegay in xarigiisa ay iska kaashadeen madaxweyne Laftagareen iyo wasaaradda amniga Soomaaliya. Laftagareen ayaa ku gacan saaray codsiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay, isagoona ku adkaystay inuusan wax kaalin ah ku lahayn xariga Robow. Shariif Sheekhuna ayaa waxaa la safan xildhibaano iyo odayaasha dhaqanka ee taageersan Mukhtaar Robow, waxaana wararku sheegayaan in laga cabsi qabo in mooshin laga keeno madaxweyne Laftagareen. Xubnahan ayaa rumaysan in Laftagareen uu awood u leeyahay inuu madaxda dowladda ku qasbo inay soo daayaan Mukhtaar Robow, iyagoo sheegay in haddii Laftagareen uu xiriirka u jaro dowladda ay ku qasban tahay in warkiisa ay maqasho, maadaama aysan doonin maamul goboleed kale oo kasoo horjeeda iyada. Suldaan Shariif Cali Xasan oo ka mid ahaa waxgaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo laga cabsi qabo inuu meel xun gaaro islamarkaana uu galaafto madaxweyne Laftagareen. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa wixii war naga soo gaaray gudaha dalka iyo dibaddiisa. Intaan warka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan subscribe channelka haddii aadan hore